حسني يونس ugu imo warar dhexdhexaad la hubiyay xaqiijintoona laga taxadiray beena waa ka fogtahay iskaashi qiimaha iyo qaayaha leh ee inagu xiran oo ku soo dhawaado halkani waa Xusni News qodobada warkeena maantana waxaa kamid ah Ismaaciil Haniyaga Xamaas oo erayo la yaab leh khudbad ay ku jirtay u jeediyay banaanbaxayaal Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa Gaza sida ay ku soo gashay Israa'iil dhulka Falastiin oo in yar idin kaga taaban doono caalim reer Masar oo loo yaqaan Dr. Ahmed Umar Hashim ayaa soo jeediyay in la sameeyo ciidamo lagu difaacayo Islaamka wuxuuna Israa'iil ku eedeeyay inay si wuxuushnimo ugu amartaagleynayso dhulka barakeysan ee Islaamka ee ay degaan shacabka Falastiin sheekhan oo khudbad ka jeedinayay masjidka Azhar horeyna ugu soo noqday madaxa jaamacadda Azhar ayaa shacabka Masar siyaabo kala duwan ugu falceliyeen khudbadiisa dad badan kuwa dawladda Abdul Fattah al-Sisi mucaaradsan ayaa ku tilmaamay hadalka sheekhu mid aanan micno ku fadhinin oo dadka shacabka ah qalbiga looga dejinayo dawladda Abdul Fattah al-Sisi isaga jeedinayso halka kuwa siyaasadda Abdul Fattah al-Sisi la dhacsan ay ku tilmaameen muujinta mowqifka Masar iyo garab istaaga Falastiiniyiinta Masar ayaa horey u cadeysatay mowqifkeeda ah inay dhexdhexaad ka tahay colaadda Falastiin iyo Israa'iil iyo duulimaadka dhulka barakeysan ee Aqsa Masar ayaa Israa'iil baaq u jeedisay inay xabadda joojiso Israa'iil ayaanan waxba ka soo qaadin baaqa Masar ayaana u muuqatay inay ka carootay baaqeeda oo aanay Israa'iil dhagjalaq u siinin maamulka Falastiin ee magaalada Aqsa ayaa xaqiijiyay inay maalinimadii Axadda dhinteen dadkii ugu badnaa tan iyo markuu dagaalkan dib u qarxay sidee lagu qabsaday Falastiin dawladda Falastiin ee uu hadda hogaamiyo Mahmoud Abbas ayaa Falastiin aan iraahday ayaa Yuhuud waxay ka ahaan jirtay 8% tira ahaan waxaa laga badnaa 92% Yuhuud oo ku kala firqsanay dunida dacaladeeda ayaa dal u sameynteeda wuxuu bilowday bilowgii 90meeyadii fikirkan oo uu ka dambeeyay nin maalqabeen ah oo Yuhuud ah oo ku noolaa dalalka Yurubta ninkan ayaa damcay inuu dal u sameeyo dadkiisa Yuhuud ah waxa uuna u sahan tagay dalal badan kama dambeystina wuxuu sahankiisa ku soo gabagabeeyay dhulka barakeysan ee Falastiin iyo daanta galbeed halkaasi oo uu ku soo arkay dhul aad u qurux badan qanina ah wuxuuna go'aansaday in dadkiisa dhulkaasi oo uu dal u noqdo dabadeedna wuxuu qayladaan u diray Yurubta iyo dadkii gaalada ahaa waa ayna ku taageereen kama dambeysna Yuhuud ayaa in la iska aruuriyay dal looga dhigay halkaasi Yuhuud ayaa aaminsan dalal badan oo dhaca bariga dhexe inay yihiin dhul iyaga laga qabsaday dalalkan oo ay ka mid yihiin dhulka ay degaan dadka Turkiyiinta ah sida Turkiga Turkistan Kazakhstan iyo dalal kale oo dhaca bariga dhexe oo Iran ka mid tahay barnaamijyo xiiso leh oo aan ka sameyn doono arrimahan hadduu eebeedmo ayaa waxaad ku maqli doontaa waxyaabo badan oo ka qarsoona oo aad iyo aad u la yaab badan Ismaaciil Haniya ayaa yiri Israa'iil waa aynu u sheegnay inay ciidamadu ka saarto masjidka Aqsa markay baaqeen iska indha tirtina gantaale ayaynu ku harqinay waaynu u sheegnay ayuu yiri Israa'iil in aanayna dab la ciyaarin haddii ay la ciyaartana ay ku guban doonto warki oo aad ka daawanayseen Xusni News ayaanu intaasi ku soo afmeerinaa waaynu kulan dambe xiiso leh wixii fikir talo iyo tusaale ah waaynu soo dhaweynaynaa hoos ayaad inooga reebi kartaa dhanka commentiga waaynu kulan dambe xiiso leh waxaynu idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh